السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي خالقة كوسو دوادا جنال كيغا إمراس وأنيقو محمود إسماعيل حاجي أو إدين له كوسو دوادا مركلة جنال كيغا سي شرف له وحلقة عصنا يا هدي أتكو عصبتها جنال كيغا إنا سبسكرايب سارتو لايك شير أدنا أصحابتا هذا لقيب ستو waxaan rabaa maanta in aan ka hadlo barnaamij yar oo ku saabsan Soomaali badan oo diinta Islaamka ka baxday. Asxaabtayda qaaliga maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada waxa dhaxmarayay Soomaali badan oo Masiixiyiin ah oo ku faanayo in ay diintii Islaamka ka baxeen ay galeen diin wanaagsan. taasina waxay sharaf dari weyn u tahay ummadda Soomaaliyeed meel walbo ay daafaha caalamka kaga sugan yihiin. dadkaas inay diinta ka baxaan maxaa u geeyay? Soomaali badan oo ku sugan dalka Kenya waxa u geysay in ay diinta Islaamka ka baxaan si ay u gaaraan dalalka qaaradda Yurub iyo Ameerika. sidaas darteed ay diinta ugu baxeen ayagoo mooda in ay wax ku helayaan maysan fiirsanin diintooda in ay tahay tan ugu wanaagsan maanta dunidan dacaladeeda aan ku noolnahay ay tahay diinta kaliya ee xaq ah ee lagu taagan yahay inay tahay diinta Islaamka. midda kale Soomaali badan oo qurbaha ku sugan ayaa waxa ugu baxay diinta Islaamka si ay sharci u helaan diinta darteeda ugu baxay markii dambana loo diiday in sharciga xataa ay helaan sababtoo ah ayagoo qaarkood lagu yiri hadaaba diintaada ka baxday soo kalsooni iskuma qabtid qaarna helay sharciyada. marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee ku sugan qurbaha ha soo dhawaysanina dadka Soomaaliyeed ee diinta Islaamka ka baxay, ha soo dhawaysanina dadka meelaha baraha bulshada soo fadhiista ee ka hadla diinta Islaamka ka bixideeda ama diinta hadda ay qaateen oo ay ku faanayaan iyo caayda ay caynayaan xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. waxaana idin leeyahay dadka noocaas ah ayaan la daawan, comment la siin, like la siin, marka ay soo fadhiistaan kaliya ha laga gudbo soo ayaga markaas meeshaas ay ku yeesan yihiin. laakiin haddii like comment qosol ama waxba u saarto just waxay meesha ay waxa ka muuqata in aad adigu aad xiisaynayso. marka maalmahan baraha bulshada waxa ku jira waxyaalahaas. dadkaasna waa dad Soomaali ah aan laga aqoon kaliya meelaha qaar ka soo qaylqayliya. waxaana leeyahay inaad iska ilaalisaan. dad baa kuula imaanaya warqado iyo waxyaalo aan jirin oo guriyaha xataa soo gargaraaca jiro warqadaha Soomaali ku qoran oo diinta Islaamka diinta Masiixiyadda lagu xayeysiinayo. dadka noocaasina soo dhawaysanina warqadii guriga la soo gargaraaco ku mahadsantihiin dhaha warqada ka qaada ka jaxjaxa ama ku celi inay kula sii hadlaan ama hadallo ku sii gudbiyaan marbaha ka ogolaan. marka dadka noocaas ee diinta Islaamka ka baxay ma laga yaabaa in ay Soomaaliya tagaan? waa laga yaabaa inay joogaan oo ay si hoosa ay diinta Masiixiga u bixiyaan ama ay dadku ugu sheegaan. marka ummadda Soomaaliyeed meel walba daafaha caalamka aad ka joogtaan dadka noocaas ah inaad iska ilaalisaan isku daya. hunguri ayaa qaaday. midda kale dadkiina diinta ka baxay ee Masiixiyiinta ah diinta waad ka baxdeen halkaas inoogu sima caayda naga joojiya. diinta inaad caysaan maahan soo kama bixin waa ka baxday qalaas inaad caysid ama wax aad ka sheegtid maaha. diinta meeshaas waxa waaye hadaad ugu baxdo meeshaas uga har waxa diinta Islaamka ka baxayna Soomaali ma ba sheegan karo waa inuu meel kale ama meesha uu joogo uu ahaada
soo asxaabteyda qaaliga ah waxaan idinkaga digayaa dadkaas baraha bulshada maalmahan dhaxyaacayay diinteena waa diinta ugu wanaagsan waa diinta xaqa ah aan ku taagannahay wax kale anigu aan doonayno ma jirto adduunyan dan kama lihin aakhiran danka leenahay marka Soomaali Maxamed waxaa idin leeyahay dadka noocaasi ka fogaada waxayna iga tahay baraarujin iyo xusuusin hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabayaasha Soomaaliyeed ee ku sugan Soomaaliya iyo meelaha kale caruurtiina weydiiya in ay salaadii tukadaan diintoodii ay ku dhagan yihiin bal weydiiya kaliya lacagahan li soo diray kaliya ha fiirsanina halkaasi ayaan barnaamijkayga ku soo gabagabeynaya tan iyo intaan markale ku kulmi doono waxaa idin leeyahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.